balanballe ayaan joognaa maanta waa safarkii nabadda midnimada ummadda Soomaaliyeed meeshaan aad arkaysiin waxa weeye waa balanballe weeye waa xildhibaan Sadiiq Warfaa safarkii nabadda midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaanu gaarnay heshiisiinta waxaanu gaarnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waqtigii ballaarnaa uu hogaaminayay waxaanu gaarnay magaalada balanballe magaalo taariikhi ah sida xasuutiin magaaladan aad ayaa loo soo baxay runtii wixii maskaxdeeda ku jira waslahaa kole degmo taariikhi ah oo dagaalkii Soomaaliya Itoobiya burburtay dib u soo gabatay laakiin shacab aad u fara badan ayaa ku nool reer balanballe way soo baxeen waxaanu ku sugannahay waxa weeye balanballe weeye balanballe magaaladan anigu kolley aad baan u xasuustaa magaaladan waa magaalo ciid gaduud ah magaaladan iyo deegaankii aan matalayo kursiga ku matala ee Galdogob waa dhul isku ciid ah oo mataqaanaa haddana taariikhda Soomaaliyeed meel ugu qoran oo ah meelihii ay dowladda Itoobiya Soomaaliya ka qabsatay dagaalkii u dhexeeyay Soomaaliya Itoobiya marka waxaanu ku sugannahay waxa weeye balanballe midnimada ummadda Soomaaliyeed safarkii socdaalka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan u salaamaya ummadda Soomaaliyeed ee halkaa ku nool farxad ay noo tahay inaan soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waqtigiisa ballaar hogaaminayo reer balanballe waa mahadsan yihiin reer balanballe waxaan leenahay Soomaaliya midnimada Soomaaliya